kadib markii saacadii laga soo gudbay ay soo bixeen warar sheegaya in dagaal u dhexeeya Somaliland iyo Puntland uu ka dhacay deegaanka gobolka Sool ayaa waxa arintaasi markii ugu horeysay ka hadlay wasiirka warfaafinta habeenka xukuumadda Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo isagoona tilmaamay inay jiraan dandaansi inta badan soo noqonaya oo ka imanaya deegaanka Somaliland dariska la ee Puntland sida alla socotaan bariyahan waxa ay dawladda Soomaaliya ku kacday falal xaalad abuura ama colaad abuura gudaha Somaliland tusaale ahaan magaalada Leeyra Qoriley waxa ay ku weerartay garaad jaamac garaad cali waxa kale magaalada Tukarraq ku weerartay ama ciidamada ku weerareen garaad jaamac garaad Ismaaciil waxa kale oo wasiirka qorsheynta Soomaaliya iyo wasiirka amniga ee Puntland ayagoo ciidan wata tageen oo sharci darro ku tageen magaalada Baran iyo magaalada Dhahar ayagoo halka ka jeediyay khudbado xaalad abuura ama colaad abuura ay ka jeediyeen sidaas awgeed dawladda Somaliland waxay go'aansatay in aanay u dul qaadan mar dambe xaaladaha caynkaas waxa ay ku wargelinaysaa dawladaha dariska ee geeska Afrika in ay Somaliland tahay dawlad ku aanbaxday nabadgelyada iyo xasilooni kooda noolaanshaha ha yeeshee hadda waxaad moodaa in ay soo gabagaboobayso dulqaadkii badnaa ee ay dawladda Somaliland muujinaysay dadweynaha reer Somaliland ciidamada qaranka dawlad waxay heegan u yihiin in ay dalkooda daafacaan iyadoo wali ay soo fadhiyaan ciidamada Somaliland iyo Puntland kadib markii ciidamada Somaliland ay gacanta ku dhigeen isla markaana ay ku waabristeen degmada Tukarraq ee gobolka Sool oo fariisin u ahayd ciidamada Puntland isla markaana kasta mu ahayd xukuumadda Puntland ayaa labada dhinac waxay warbaahinta isu mariyeen eedeymo dawladda Puntland ayaa war-saxaafadeed ka soo saartay afhayeenka xukuumadda Puntland Cabdullaahi Jaamac Quraan Jecel ayaa ku eedeeyay Somaliland inay duulaan qaawan ku soo qaaday deegaanada Puntland si alla socotaan saaka abaarihi shantii arooriyo ayaa ciidan ka socda maamulka isku magacaabay Somaliland ku soo qaaday duulaan deegaanka Tukarraq ee gobolka Sool customkaas oo ah custom Puntland oo dad shacab ah ku dhibaateeyeen iyaga oo ka raba inay sameeyaan fawdo isla markaana shacabka Puntland ay dareensiiyaan nabadda iyo xasiloonida ay ku soo dhaweeyeen madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay ka xun yihiin nabadgelyada iyo dabaaldegyada ka socda Puntland muujinayana cadaawada ay u qabaan horumarka uu madaxweynaha dawladda federaalku xariga ka jarayo ayay saaka arooriyada waxay ku soo qaadeen duulaan deegaanka Tukarraq sida awgeed dawladda Puntland waxay ka soo saartay warmurtiyeed ay u sheegayso dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka daneeyaasha nabadgelyada iyo xasiloonida ummadda Soomaaliyeed iyo dhammaan cid kasta oo ka shaqeysa deganaanshaha guud ahaan mantiqada in maamulkaasi uu duulaan ku soo qaaday deegaamo iyo dhul nabad ah oo ka tirsan Puntland isagoo horeyna calaamad ugu ahaa inay ka shaqeeyaan deganaansho la'aanta Soomaali weyn hadeertaan ay maragmo doonto noqotay in madaxweynihii Soomaaliyeed iyo shacabka Puntland oo dabaaldegaya inay duulaan ku soo qaadeen fariintaas oo ah fariin cad inaysan ka shaqeyneen deganaansho inaysan nabad doonayn inay haba yaraatay ka xun yihiin wixii horumar ah oo ka hirgala Soomaaliya waxay dawladda Puntland u sheegaysaa shacabkeeda inay difaacayso deegaamada dhamaantood isla markaana iyagu guud ahaan meel joogan Soomaali iyo shacabka Puntland ba meel uga soo jeestaan xasilooni darro dambe Soomaaliya in dib ugu soo noqoto iyo garasho xumada ka imaanaysa
hargeysa in ummadda Soomaaliyeed meel uga soo wada jeesato shacabka Puntland oo dhulkiisa difaaco aad waa mahadsantihiin